radio halkan maanta waxay doonaysaa inay ka hadasho arrinta xariga TV-ga cunsuriga ah ee cuqdaawiga ah ee cadowga ah ee muxuu ahaa farmaajo hoosta lacagta uga soo diray oo yiraahdo muxuu ahaa xafladeydana sii daata Soomaaliland ha sii deyn xukuumadda Soomaaliland talaabada ka qaaday aad baan ugu mahadnaqanaa macnuhuna ma saxaafad iyo saxaafi baad ku tiigsanaysaa waxa weeyaan adeer qarannimadan tacbaan naga galay localka Soomaaliland qofku haduu dhaafo oo uu qarannimada ka baxo oo uu dantayada ka hor yimaado albaabada in la isugu dhufto way TV-ga Universal ma aha markii koobaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad ee qarannimada Soomaaliland ka hor yimaado ina caabe berito hadda isagoo oo iyo konton oday wato Salabaan gaal wato oo kulbanin wato oo iman doona oo oranaya maxay haleysii daayo oo maxay waa horgale isagoo haba malaha TV-ga ina yaro muxuu ahaa waxa la cadcada oo laangaaba oo bahdilan oo meydkiisa xamar lagu kaadso oo laba aasan xurmana aan ku lahayn ba kula laakiin xasadnimo Soomaaliland u diidan xasadnimo ay u diiday kuwa haysta xamar maaha kuwa degan maaha wuxuu ka yahay laangaab aanba iyo tamadnahan ina ka cadcadka meesha leh waxa ka hadla afar inoo yar xanuunsanaya oo cuqdadii laabta googoysay TV ma noqon karo saxaafadna ma noqon karo TV nooca ku shaqeeyo oo cuqdaawi oo cuqdad leh ma noqon karo Salabaan Yuusuf Ali Koore aad baan ugu mahadnaqanaa waxaan arkay inama yaroo Yuusuf Cabdi Gaboobe ka lusho Yuusuf Cabdi Gaboobe ku haysta waxa la sheegaya saxafi Yuusuf Cabdi Gaboobe ka aqoon badan oo Soomaali jooga maanta ma jiro saxafi Yuusuf Cabdi Gaboobe waa mujaahid dalkan qiimo ku leh ma aha nin kalidii jooga wuxuu diiday baan diidnay wuxuu taageeray baan taageernay mujaahidiin baan Yuusuf wada ahayn halkan ummadeed baan ku soo gaarnay in yaro xuno cuqdaawi oo laangaabaho muxuu ahaa lagu dhirbaaxo xamar hargeysana waan ku dhirbaax hadda hargeysa magaalada ilaah Soomaaliya waxa weeyaan magaalada hargeysana waan ku dhirbaax ninkii ay joogi waa oo wallahi waxa weeye ninkayda saxaafad baan madax banaan ku yaro xuno isna cuqdaawi oo la yiraahdo muxuu ahaa atoosh oo dhagax buro ogaadeen isna laangaab xuna ayaa wuxuu ka hadlayay xalay wuxuu wareysanay Salabaan Ali Koore sidoo uu wareysanay darkiisa inuu xanuunsanayo war saxaafadda madax banaan tahay maxay Ismaaciil Cumar Geelo soo wareysan weydeen saxaafadda madax banaan tahay maxay u tagi weyd anaga nooga dhigasan saxaafad baa madax banaan Soomaaliland ku dibiya saxaafad baa madax banaan aniga niniga afdheer ma jiro saxaafad Soomaaliland maanta lagu qabsan karo madax banaanayna ma jirto laakiin uu localka kama baxo oo iska ogiya aniga xukuumadda way ogtahay maalintan qarannimada ka baxo garbadoob ha la xiro janannadaanu laacnaa kulkaaba madaxweynahan iska lulaa meel kasta oo madax banaan saxaafad baan Soomaaliland ka madax banaanayn ilaahi subhanahu wa ta'ala ki aan madax banaan waxa ka sheegay waxa weey ka ku duminaya ummadda kala qaybinaya qarannimadeeda ka xun cuqdaawiga ah ee xanuunsanaya Yuusuf Cabdi Gaboobe aad baan u taageersanahay inamada yarar iska luleena waxa leeyahay war wuxuu bay ka shaqeyn radio halkan kaale gacmo farmaan soo dhaweynaya inamada Universal laga xidhay iyo kuwa yarar kala wada xanuunsanaya meel ka shaqeeyaan waaya annaga idin hayna shaqo meesha doonta mad ka shaqeynaysan radio halkan mad ka shaqeynaysan laakiin Universal annaga iyo kuwa kala ka xun naga dhex shaqeysan maayaan xukuumadda Soomaaliland waan ku taageersanahay nin kasta oo dariiqa ka baxa oo kala baxa gaadhigoona qoorta laga gooyo laakiin annagu localka si fiican ma ugu dabaalanaa ila waa localkayga xukuumaddeeda waan dhaliili karaa madaxdeeda waan dhaliili karaa shirkadaha waan dhaliili karaa cid kasta waan dhaliili karaa ilaa kamaan bixin xuduudda laakiin ninku haduu cuqdaawi noqdo oo qarannimada ka hor yimaado albaabka la isugu dhuftaan leena mana soo dhaweynana mana aha ku tiigaalin saxaafadda ku tiigaalanay waxaanu doonano inta ka hor timaada albaabka la isugu dhufto